maxaad ka ogtahay qisada gabadhan bilyaneerka ee caanka ah? Gabadhan ayaa hadda waxa lagu magacaabaa J.K. Rowling, waxay ku dhalatay dalka Ingiriiska. Gabadhan ayaa hadda waxay ku nooleed nolol saboolnimo ah, sidoo kale waxay jecleed wax qorista. Gabadhan ayaa hadda iyadoo da'yar ayay guursatay nin. Haddaba ninka waxay isku dhaleen gabadh yar, muddo yar kadibna guurkoodii mabuu sii waarin oo way isfureen. J.K. Rowling haddaba waxay isku dayday in hibadeedii wax qorista ay hore u sii wado, oo waxay qortay buug oo waxay u tagtay shirkad buugaagta daabacda oo la yiraahdo Pinchun Books, laakiin way diideen oo may aqbalin. haddana waxay u tagtay shirkad labaad oo iyadna way diiday ilaa ay u tagtay 10 shirkadood in ka badan oo ay diideen. haddaba gabadhan ayaa dadkii waxay kala kulantay cawaaqib badan oo way niyad jabiyeen oo waxay ku yiraahdeen waxaan wax shaqaynaya ma ahane iska daa, laakiin iyadu may niyad jabin oo hore ayuu sii socotay. haddaba waxa aqbashay hal shirkad oo lagu magacaabo Bloomsbury Publishing. haddaba shirkadan qaabkay ku aqbashay waxay tahay maamulaha gabadhiisa yar ayaa waxay akhrisay buugga, kadib waxay ka heshay buugga J.K. Rowling ay qortay. haddaba gabadheeda may ka heshay buuggii shirkadda way u daabacday oo way ogolaatay. haddaba buuggii markii la daabacay buuggu wuxuu noqday mid viral ah oo dunida dhan qabsada oo dunida dhan laga gato, oo buuggu wuxuu noqday mid la gato oo la iibsado. gabadhu waxay noqotay qoraa weyn oo laga yaqaano dunida daafaheeda oo dhan oo buugaagtada la iibsado oo buugaagta kale ku dhex jirin. gabadhu way u kala kacday, waxay noqotay milyaneer, way ka talaabsatay bilyaneer bay noqotay. gabadh taajirada ay noqotay maasha Allah. gabadhan haddaba qisadeeda wax laga sameeyay filmo badan oo gaaraya 7 filin. haddaba qisada gabadhan waxay inoo sheegaysaa inaan la niyad jabin oo la sii wado waxaad wadid cawaaqimo kastood bulshada kala kulantid. sababtaa waxaa laga yaabaa isku daygaaga u dambeeya inuu noqdo guushaada. haddaba muuqaalkan dad ka heshay like noo saar, falowna soo dheh, asxaabtadana sii gaarsiiy fiidiyowga.